kulanti waxaana wanaagsan dhawaadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta ee telefishinka SBT qodobada wararka maanta ugu door kuroonaya waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka oo ka hor yimid qorshaha dowladda federaalka ee doorashada Soomaaliya. James Swan oo warbixin la xiriirta Soomaaliya siiyay ku-xigeenka Abiy Ahmed yaa xaq u leh go'aaminta halka uu ka dhacayo shirka 15 February. Waa maxay sababta keentay in Kenya ay dalbatay in dib loo dhigo dacwadda badda kala dhaxaysa Soomaaliya? Wiil 9 jir ah laga badbaadiyay kooxo afduubatay oo ku rabtay $7,000 beesha caalamka oo cadaadis xoogan ku saaraysa in shirka lagu qabto Muqdisho. Wasiir Roble oo carruur darteed ugu baxay shirka golaha wasiirada ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Turkiga oo askar looga dilay dalka Ciraaq kadib howlgal adag oo ay qaadeen militariga Turkiga. Golaha wasiirada oo ansixiyay siyaasadda qaran ee howlgabka. Qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran diyaargarow oo maalinimo Jimcaha taariikhda ay ku beegan tahay 12 February 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee howlgabka iyo tirka shaqaalaha rayidka ee dowladda xubin guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka iyadoo la soo bandhigay qorshaha korontada dalka. Golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga taasoo ku aadan xasilinta iyo howlgallada amniga dalka. Wasaaradaha ayaa xaqiijiyey in la dardargelinayo howlaha lagu sugayo amniga iyo nabadaynta dalka xilligan muhiimka ah ee lagu jiro doorashooyinka dalka. Shirka golaha wasiirada oo uu gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa wasaaradda caafimaadka ku soo bandhigtay xaaladihii ugu dambeeyay ee caabuqa COVID-19 iyo saamaynta uu ku yeeshay bulshada, waxayna xukuumadda bogaadisay dadaalka lagu badbaadinayo caafimaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo lagu baaqay in la xoojiyo wacyigelinta bulshada. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo markii hore shirkaas gudoominayay ayaa degdeg uga baxay kadib markii loogu yeeray xafiiska madaxweyne Farmaajo sida ay sheegayaan ilwareedyo ku dhow Villa Soomaaliya. Warar ku dhow beesha caalamka ayaa sheegaya inay u qabteen madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo inuu ku aqbalo shirka lagu qabto Muqdisho. Dhinaca kale Villa Soomaaliya ayaa lagu sugayay in xalay ay soo saareen war ay shirka ugu wareejinayaan magaalada Baydhabo iyagoo ka cararaya in shirka ay ka qayb galaan dhammaan saamileyda siyaasadda. Culayska saaran madaxweynaha ayaa sii xoogaysanaya iyadoo dhammaan saamileyda iyo beesha caalamka ay doonayaan in Muqdisho la isugu yimaado marka laga reebo laftagareen oo guli aan ku quusan dhanka Farmaajo oo uu ku doonayo inuu ku soo laabto. Saacadaha soo socda waxaa soo bixi doona warar saxaafadeedyo iyadoo siyaasiyiintu caadaysteen muddooyinkan inay hadlaan saqdhexe. Ciidamada booliiska magaalada Beledweyne ayaa shalay soo badbaadiyay wiil uu afduubtay nin burcada kaas oo lacag madax furasho ah weydiistay qoyska wiilka. Wiilkan oo da'diisa lagu sheegay 9 sano jir ayaa lagu magacaabaa Saalax Cabdulqaadir Maxamuud waxaana markii la afduubinayay laga soo daayay iskuulka. Ninka afduubtay wiilkan oo magaciisa lagu soo koobay Sayid Cali ayaa watay mooto bajaaj wuxuuna wiilkan yar ka dalbaday inuu soo tuso dukaanka aabihiis isagoo markii uu raacay la aaday jiho kale. Ninkan ayaa sawirro iyo muuqaalo uu duubay wiilka yar uu u xiran waxa uu la wadaagay qoyskiisa isagoo ugu goodiyey inuu diri doono haddii aan la siin qarashka uu dalbaday. Guriga yaala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayuu ninkaasi geeyay wiilkan yar wuxuuna aabihiis weydiistay 7,000 oo madax furasho ah oo dollarka Mareykanka ah iyadoo mar ay gorgortan wada galeen uu ka reebay $2,000 sida uu sheegay Abu Cabdulqaadir Maxamuud. Ciidamada booliiska magaalada Beledweyne ayaa soo xiray ninkan afduubtay wiilka wuxuuna taliyaha saldhigga galbeed ee Beledweyne warbaahinta u sheegay in cadaaladda la horgeyn doono ninkan. Magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii dambe ku soo kordhayay qaraxyo miino oo wadada dhinaceeda la dhigay taasoo lagu beegsanayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda iyo shakhsiyaadka gaarka ah. Tirada dhimashada ma badna marka laga reebo 10 mas'uul ee 3 bilood ee la soo dhaafay la beegsaday qaraxyadan cusub ee isku nooca balse khatar badan ayay galeen. Intii u dhaxaysay bilihii November ilaa January waxaa qaraxyo la beegsaday 10 mas'uul oo qaarkood ka tirsan yihiin dowladda Soomaaliya waxaana ku dhex jira
hal qarax oo dhacay qiimaynta la sameeyey bil ka hor 20 bishii Oktoobar 2020 Maxamed Aadan Koofi agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi ayaa qarax lagula beegsaday meel u dhow isgoyska kilomitir 4 wuuna ka badbaaday wuxuuna ka soo baxay hoteelka ay al-shabaab weerareen ee Afriik dhamaadkii bishii la soo dhaafay 7 bishii November 2020 Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle inkastoo ay dhibaato soo gaareen haddana Dr. Cusmaan oo ka tirsanaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Kenya ayaa xaqiijisay in maxkamadda ICJ ay ka dalbatay in markii shanaad dib loo dhigo dhageysiga furan ee kiiska la xiriira muranka xadka badweynta India ee ay isku haysaan Soomaaliya taasoo qorshuhu u ahaa in la bilaabo bisha soo socota ee Maarso wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in ujeedada arrintan ay u codsadeen ay tahay sabab la xiriira cudurka COVID-19 oo saameyn weyn ku yeeshay howlihii diyaargarowga kiiska ee dowladda ay waday Kenya ayaa garsoorka maxkamadda ku wargelisay in aysan dhageysiga dacwadda uga qayb gali karin si rasmi ah iyadoo ay jirto khatarta dhinaca amniga ah oo wadanka ku imaan karta oo ku xiran natiijada ka soo baxda dacwadda la gudbiyay sanadkii 2014 ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in Kenya ay doonayso in dib loo dhigo kiiska dacwadda badda ee Koryala maxkamadda caalamiga ee ICJ Dube ayaa intaa ku daray in Kenya ay ku doodayso in Soomaaliya aysan xilligan ku jirin dowlad sharciyeed u leh hogaaminta dalka hase yeeshee dowladda Kenya ayaa gaashaanka ku dhufatay sheegashada Soomaaliya ee ku aadan sababta ay dalbatay dib u dhigista kiiska inuu yahay arrimo la xiriira sharci ahaanshaha dowladda Soomaaliya shirka uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay 15 Febraayo isugu tagaan isaga iyo madaxda dowlad goboleedka ayaa wajahaya caqabad xitaa ka hor inta uu bilaaban shirkaas uu Farmaajo iclaamiyay inuu ka dhaco Garowe ayaa waxa ka soo horjeestay Puntland Jubaland gudoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha mucaaradka oo dhamaantood doonaya in shirka uu ka dhaco Muqdisho hase yeeshee dowladda federaalka ayaa ka gacan seertay qaybo baaqyadooda waxaana wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube uu ka adkaystay in shirka uu ka dhaco Garowe ma cadda haddii Farmaajo uu Garowe ku qaban karo shir uusan raali ka ahayn Saciid Deni balse taas ka hor su'aasha taagan ayaa ah yaa xaq u leh asteynta madasha shirka lagu qabanayo Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha bariga Afrika ayaa qaba in Farmaajo uu xaq u leeyahay inuu shirka ku qabto meesha uu doono arrintan ah in saamileyda siyaasadda ay ka qayb gasho kulankaasi ayaa qabiirkan waxa uu sheegay in mucaaradka aanay qayb ka ahayn shirkii 17 Sebtembar la gaaray ee gundigu ahaa shirka la shaaciyay dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah ragga doonaya in ay u tartamaan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa bartiisa Facebook ku sheegay in shirka uu madaxweyne Farmaajo uu soo tuuray koox kamid ah beesha caalamka la wadaan uu ku doonayo inuu isaga horkeeno Galmudug iyo Puntland isla markaana uu ku tusiyo in uu weli madaxweyne yahay ururada bulshada rayidka ayaa ka hor yimid qorshaha ay wado dowladda Soomaaliya ee in shirka looga aransanayo arrimaha doorashooyinka lagu qabto magaalada Garowe waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado magaalada Muqdisho ururada bulshada rayidka waxay soo jeediyeen in shirka lagu qabto Muqdisho loona ogolaado inay xubno ka yeeshaan sidoo kalena saamileyda siyaasadda qayb ka noqdaan si shirka uu u noqdo mid dhameystiran qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay tahay in la ilaaliyo xasiloonida nabadda dalka sidoo kalena qof walba oo qaadan weysa mas'uuliyadeeda lagu xisaabtamo madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in shir la isugu yimaado 15 bishan madashuna ay noqonayso caasimadda Puntland balse maamul goboleedka uu hogaaminayo Saciid Cabdullaahi Deni way ka biideen Puntland way soo dhaweeyeen shirka la isugu imaanayo balse waxay ku baaqeen in shirka lagu qabto Muqdisho sidoo kalena Jubaland ayaa qorshahaas taageertay waxayna isku raaceen in shirka ku soo qayb galaan xubnaha beesha caalamka si markhaati loogu noqdo cidda hortaagan in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa war ka soo saartay wadahadal shalay qadka telefoonka ku dhaxmaray ra'iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Dameka Makonona
iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan. labada dhinac ayaa si qoto dheer ugu wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika, iyagoo isdhaafsaday macluumaad iyo aragtiyo ku saabsan xaaladda hadda ka taagan Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka. James Swan ayaa ugu horreyn warbixin ka siiyey Dr. Dameka geedi socodka doorashada Soomaaliya, rajooyinka iyo caqabadaha jira, xaaladda siyaasadeed ee hadda ka taagan, khataraha dhanka ammaanka gaar ahaan Al-Shabaab oo ah kooxda ugu dhaqdhaqaaqa badan gobolka. sidoo kale labada dhinac oo kala matalaya Itoobiya iyo qaramada midoobay waxay bogaadiyeen dadaalada ay wadaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah si xal looga gaaro khilaafka doorashada. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee madaxweyne Farmaajo oo haatan wajahaya fashil doorasho kii ugu xumaa, waxaana dhammaaday muddaxileedkii xukuumaddiisa iyadoo aan lahayn wax qorshe doorasho. khilaafka ugu adkaa ayaa ka taagan qabashada doorashada Soomaaliya, wuxuuna hadda xaalku marayaa in Puntland iyo dowladda dhexe ay isku turturaan halka la dhigayo gogosha shirka uu iclaamiyey madaxweyne Farmaajo. siyaasiga caanka ee Itoobiya Jawaar Maxamed iyo 19 kale oo loo haysto eedeymo la xiriira argagixisnimo ayaa muddo ka badan 13 maalmood ku jiraan gadood cunto ka soo mid ah sida ay sheegeen qareenadooda. eedeysanayaashan ayaa bishii Sebtembar lagu soo ogay dacwado salka ku haya mawjadihii qalalaasaha qoomiyadaha ee daba socday dilkii bishii Juun loo geystay fanaanka Oromada ahaa oo lagu magacaabi jiray Hachalu Hundessa. in ka badan 150 ruux ayaa ku dhintay rabshadihii ka dhacay geerida fanaanka oo lagu toogtay gudaha magaalada caasimadda ee Addis Ababa. Master Jawaar oo ah nin saameyn leh, horeyna u lahaan jiray xarun warbaahineed, iyo siyaasiga lagu magacaabo Bakela Garba oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Oromada ee OFC ayaa ka mid ah dadka gadoodka cunto ka soo mid ah ka wada xabsiga Kalti. waxay dalbanayaan in la sii daayo dhammaan dadka Oromada ah ee loo xiriray arrimaha siyaasadda iyo in la soo afjaro tacdiyada loo geysto qoysaska ay ka soo jeedaan siyaasiyiinta xabsiga ku jira, sida ay Facebook ku soo qoreen kooxo qareenada ah oo u doodaya hogaamiyaashaasi. mid ka mid ah qareenadooda oo lagu magacaabo Kadir Bula ayaa warbaahinta u sheegay in 4 maxbuus ay sooxeen dhowr maalmood ka hor, halka qaarkoodna looga cararay isbitaalka si loo daweeyo. mas-uuliyiinta dalka Itoobiya weli kama aysan hadlin arrinta ku saabsan gadoodka cunto ka soo mid ah. intaas ayaan ku saafmarina wararka maanta ee telefishinka SB TV. intaan warkan waran ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.